السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامة يا صومالية إيميل البود دونك دعالي زيجا جوكتان ولكن محمد إبراهيم عمر ومركلة برنامج دين سو دياري برنامج كانوا حكاه ليا سياسية صوماليات يدد كيغا وحان رأى مركا إنان كو قادا ديغو دور بوينتي إنتانان قلين بوينتي دا وحان رباه إن آن مرك هورا أفيفتو waxaad moodaa in aan dhaqan u leenahay Soomaali haddaan nahay in qofkii hadlabo loo saariyo qayb ka mid ah society-ga oo loo kala qaybiyay qayb muxaafada iyo qayb mucaarada oo dadkii ay noqdeen dad un labada u kala qaybsan oo aysan jirin qayb dhexdhexaada oo analyze garayn karta ama ka hadli karta qadiyadda Soomaaliyeed ee maanta taagan ama siyaasadda Soomaaliyeed ee maanta taagan marka walaalayaal waxaan rabaa marka hore inaan loo arkin in aan cid gooniya aan la jiro ama cid gooniya aan diidanahay ama aan rabo inaan amaano ama wax ka sheego waxaan rabaa kaliya in aan pointigayo kusoo gudbiyo halkan oo aad iga daawanayso waxaan rabaa marka inaan idin sheego siyaasiga Soomaaliyeed waa kuma siyaasiga Soomaaliyeed waa ninka aan ka hadlin danta Soomaaliyeed ee mar walba ka hadla wax mala awaala ama madatuula waxaan idin siinayaa marka examples baan idin siinayaa waxaa jira dhowr arrimood oo fundamental u ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dhowrka arrimood ee fundamentalka ah waxay kala yihiin kow security waddanka in la dejiyo oo la xasiliyo oo laga saaro nimanka nabadiidka ah that's number one in waddanka la xasiliyo laga saaro nimanka nabadiidka ah oo ruuxa Muqdisho joogo intuu gaari ka qaato uu tagi karo meesha uu ka rabo Soomaaliya that is number one siyaasiga Soomaaliyeed taa ma uu diyaar aha inuu ka shaqeeyo ama uu sameeyo say aan ka aragnay dawladda hadda jirta aan hayna ee farmaajo macnaheedu ma aha inaan farmaajo diidanahay macnaheedu waxa weeye maadaama uu 4 sano joogay ninka ugu dambeeyay dawladda madax ka yahayna uu yahay farmaajo 4 sano ugu dambeysay waxaan ka rajaynaynay oo rajo badan Soomaaliya ka qabtay in inta hadda marka maamulku isku jirta uu ka dhigi doono nabad iyo muxuu ahaa xasilooni laakiin tii ma hayno meeshii lala dagaali lahaa al-shabaab iyo nimanka nabadiidka ah waxaa lagu mashquulay politics siyaasad Soomaaliya gudaheeda ama siyaasiyiin gudahooda lagu mashquulay marka that's number one security wax laga qabtay haba yaraatee way yartahay wax laga qabtay kalena wax laga ma qabanin hadda oo aan maraynay xorriyaddii muxuu ahaa xorriyaddii oo u dabaaldegaynay xorriyaddii Soomaaliya ay qaadatay 26 of July oo Luulyo 26keedii iyo 1 July waxaan dhageystay khudbaddii uu jeediyay madaxweyne Farmaajo waxa kale oo dhageystay khudbaddii uu jeediyay Siilaanyo Muuse Biixi khudbaddiisana waan dhageystay waxa kale oo dhageystay khudbaddii uu jeediyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maadaama uu mucaarad yahay hadda dawladda Farmaajo mucaarad ku yahay khudbadahaas kuma jirin shanta arrin ee asaasiga u ah nolosha qofka Soomaaliga maxay yihiin marka security waxaan inay number 1 number 2 oo aan laga hadlin oo la taaban waxa weeye in lacagta waddanka aan la soo qaadin ba haba yaraatee Soomaaliya si u burburtay lacagteedu way baabaaday waxaana loo sheegay ama aan xogta ku haynaa in lacag far badan oo la soo daawacay ay taalo dalka Suudaan lacagtaas ama lacag kaleba haddii loo keenayo warka ma hayno haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed cid soo hadal qaadaysa ama ka hadlaysana ma jirto dadka aqoonta u leh societies-ka iyo inay horumaraan ummad ama waddan waxay qodob aad u muhiim ka dhigaan lacagta hadduu waddanka lacag lahayn muhiimad ma aha horukac ma yeelanayo muhiimadiisu waxa weeye waddanka marka inuu samaysto lacag waddanka isaga leeyahay after security lacag qodobka saddexaad ee muhiim ah in laga sheekeeyo oo aad muhiim ugu ah waxa weeye in waddanku uu dhisto caafimaad la isku haleyn karo isbitaallo dhakhaatiir nurses kalkaaliyayaal waddanka uu isku filan yahay caafimaadkiisa wixii oo ku saabsan caafimaad waxaan ognahay in aan laga taabaninba ama laga shaqeyninba wax ku saabsan caafimaad ama aan la soo hadal qaadin saddexdii nin aan idin sheegay khudbadahooda aan dhageystay nin caafimaad soo hadal qaaday ma laha waana ku noqon doonaa at the end of the video-ga school system ama waxbarashada waa waxa ummadda haga ama keena in base ay u noqoto inay dadku isku fikir noqdaan
isku si wax u arkaan manhaj bari dhaweyd laisku beriday oo soomaaliya ay samaysay waan ogaa laakiin manhajkii dad badan oo kale oo aanan manhajka qaadanin oo ama aanan raalli ka ahayn oo gobollada qaarkood ay ka mid tahay puntland baa jira marka manhaj waa very important in ummadda manhaj loo sameeyo wiilka yaree hadda soo koraya ee soomaaliga ah uu akhristo waddankiisii wuxuu ku sugnaa iyo wax hadda uu ku sugan yahay oo uu barto ta kale very importantiga ah ee la rabo in madaxda soomaaliyeed ay ka hadlaan ama ay hubiyaan waxaa weeye wax loo yaqaano food security inay ummaddu isku filaato cunto ahaan oo ay yeelato system beera ah ama beerley ah oo laisku hadlayn karo oo soo saara waddankaas ama societygaas ama ummaddaas wixii ay cuni lahayd waxaan ognahay trade imbalance ka jira soomaaliya iyo waddamada deriska la ah inuusan wax oo hataa laga hadli karaba uusan ahayn trade imbalance in ganacsiga soomaaliya ka tagay waddamada aada iyo waxa loo keeno soomaaliya ay kala badan yihiin oo ay badan tahay waxa soomaaliya la keena oo yar tahay waxa ka baxa soomaaliya oo loo iibgeeyo waddamada deriska marka qodobadaas ugu muhiimsanaya shanta ee aan ka soo hadalnay ninka mas-uulka ah ama siyaasiga soomaaliyeed ee aaman taabaninba ee raba in madaxweyne loo doorto ani waxay la tahay ninkii indhoolaha ahaayee yiri dadka waxbaan idin tusayaa oo meel baan idin hagayaay oo kale marka waxaan u baahannahay soomaaliyey in laiska daayo waxaan uu ka hadlay qabiilkaa waay hebel baa saa dhahay ujeedkaasu u leeyahay maya ujeedka iyo danta aan leenahay waxaa weeye ummad soomaaliyeed oo wanaagsan oo farxad iyo barwaaqo ku nool ogna destiniga ama meesha ay u socoto laakiin marnaba ma la yeeli karo ama lama dul qaadan karo in naloo kala qaybiyo societies iyo qabaa'ilo kala duwan oo ninkii hadlo lagu shabadeeyo inuu qabiil ka soo jeedo marka the last point waxaan rabaa inaan taabto khudbaddii farmaajo wuxuu yiri madaxweyne farmaajo khudbadiisii hadda uu xorriyadda ka jeediyey wuxuu yiri waxaa laisku haystaa laba fikir waddankan oo kala ah gumaysti muxuu ahaa fikirkii uu keenay ee ahayd qabaa'ilada in qabaa'il laga sheekeeyo qabaa'il laisku maamulo qabaa'il hawshaa lagu wado iyo in gumaysi diid la noqdo oo wadiniyiin la noqdo jaal madaxweyne adoo mahadsan waxaan rabnaa in qodobada muhiimka ah ee u baahan in la taabto ay security ka mid tahay lacagta waddanka ay ka mid tahay oy ka mid tahay caafimaadka ummadda soomaaliyeed iyo isbitaaladooda ay ka mid tahay waxbarashadooda ay ka mid tahay food securitygooda in xooga la saaro ama wax laga qabto marka it looks like madaxweynaha inuu bilaabay kambaynkiisii ku tartami lahaa oo raggi kalena uu isaga dhicin lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur khudbaddii uu jeediyey waxaa ka muuqatay nin caraysan oo ka hadlaya keliya farmaajo wuxuu dhahay nana xasuusinaya dowladdii tan ka horreysay ee maxamed siyaad barre iyo dhibaatooyinka ay ummadda soomaaliyeed u geysatay waa arrin jira dhibaatooyinka way jiraan wayna dhaceen in dadka qaarkii lagu xadgudbay jiritaankooda iyo qofnimadooda iyo muxuu ahaa iyo xorriyaddooda laakiin micnaheedu ma aha ninka maanta jooga inuu la mid yahay ninkii hore maanta waa waddan horumaraan ku joognaa oo muxuu ahaa adduun horumaraan joognaa oo teknolojiya leh marka looma dulqaadan kara ama ma dhici doonto in qof intuu iska yimaado uu soomaaliya xoog ku maamulo waad mahadsantihiin soomaaliya meel walba joogtaan waxaan rabaa marka in sidaas oo kale muuse biixi isagana kamuusan hadlin danta puntland somaliland wuxuu ka hadlay keliya waan goosannay mana soo noqonayno taana micno uma yeelanayso ummadda ku nool somaliland iyo soomaaliyaba waxaa laga rabaa marka siyaasiyiinta somaliland sida nin aan maalin dhaweyd aan fiirsanayay uu ka hadlayay in la keeno barnaamij cusub oo soomaaliya wax lagula qaybsado oo keeni kara in horumar ay gaaraan ummadda soomaaliyeed ee meel walba ku nool waad mahadsantihiin intaa yar baan rabinaa idinla wadaago khayr iyo baraaraan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan qaldayna shaydaan bay ka ahaatay waxaan saxayna waxaan rabaa keliya inaan ugu heeliyo ummadda soomaaliyeed oon rabo inay barwaaqo iyo bashbash ay ku noolaadaan waa idin salaamayaa khayr iyo baraaraan idin rajeynayaa video sii share gareeya haddii aad ka hesho contentiga ama aan rabnin inaan soo bandhignana nagu dhiirigeli inaad subscribe-ka noo samayso si ummadda uu u wada gaaro danaha rasmiga ah ee ay leedahay ummadda soomaaliyeed oo ah
in horumar la gaaro wiilka Soomaaliyeed uusan badaha ku dhimanin oo uusan tahriibin ama xabada aysan ku dilin meelo kale oo aan muhiim ahayn waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu